maalintii la magacaabay commentiyada dhalinyaradu soo qorayeen deegaanka waxay ka dhigayaan wax ciyaar ah oo lagu ciyaaro wasaaradda waxa ugu badan oo sameysay aan ku faani karno maanta waxa weeye in fahanka deegaanka dadweynuhu ka haystaan gaar ahaan dhalinyaradu u kor u kacay wasaaradda deegaanka Puntland waxa miisaaniyadda ugu jirtay 2024 $36,000 oo dabcan kharash bileed ah isleedahay hawlaha u iman tahay wasaaraddu miisaaniyadaas oo ku filan kuma filla meelaha hadda baadiyaha markaan tago reer baadiyaha aan u sheegaan waraado dhurwaaga ayaan la dilin waxay in farwal wuxuu noo keenay hadda dhurwaaga ayaan la dilin dhurwaagu waa dawladda hoose baadiyaha wasiir markaa ka soo degaysid airportka Garowe iyo sidoo kale airportada la mid ah Puntland ku yaala runtii aad baa uga naxaysaa dhul abaar ah oo waxa weeyaan geed ku beernay si guud wasaaradda maxaa uga qorshaysan dhiraynta iyo cagaarinta airportada oo ah ilaha wadankan qofka soo galo laga qiimeeyo si guud nugaal badankeeda inta badan waa deeranta saas sagaagta oo wax ilaahay u sameeyay way waxaan dhici kartaa odayga maarata ku imaanaya bahasha ku sheegay wiilkiisu geedka jaray waxa kaliya aan sameeynaa anna waxa way bahasha baan joojinaa بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبض صاحبيال كلن كي سديداد أي مدشة ما يفكران عاوة وحقع السمن وزير محمد عبد الرحمن فرولة سيدو كلنا قدوميها حزبي هرسد كلن كنا عاوة وحدارنان دوناينا اسكور يسونا عرمها كساب سن ديغان كاي سيدو كلا ديمقراطية مركو كوباد حان ربا إنا سودو ويو أنكو سودو ويو مدشة وزير محمد عبد الرحمن وزير كسودو مدشة ما يفكران بلو قبا وحان ربنا إن بدن أو كسابسن وزير محمد أنا وقالنا وكم محمد عبد الرحمن بلوغنا للشيسة إلى هير كيسة وحبرشة السياسة زي كوبن وكم محمد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم والله مغلى يا سما. رحمة الله يدك كان وايد وذي قانا هذا وكم محمد عبد الرحمن. أنا معصبي ودتك رحمة الله يريد بنتو لأنتو ذا بدن وايد قانا أنا وكم هذا وحلو يدي أقفك كعصب. deegaanka iyo dalka iyo laakiin hadda hadii la rabo xogaa yaro brief ah kulleeba un waa in siin karaan Maxamed Cabdiraxmaan baa leeyahay waa taqaaniin wasiirka deegaanka Puntland waxaan in muddo ah ku mashquulsanaa arrimaha siyaasadda wax badan baan ka soo shaqeeyay waa joogay dadkii waxaan ahay jaamacadaha ka baxay xilligii dagaaladu dhaceen Soomaaliya ka dhaceen burburkii oo intiina badan oo meesha fadhida aydan nasiib u yeelan in maaragtay aad markaa ogaataan dawladda Soomaaliyeed oo xilliga jirtay oo burburtay 1991 meelahaas ay burburtay dadkii waxaan ahay markaas jaamacadaha qalinjabiyay xilliga burburka kadibna wixii burburka Soomaaliya ku dhacay oo saameynta ku yeeshay oo nasiib u helin in maaragtay dalkooda ay u shaqeeyaan wax soo barteen kadibna dhibaatooyinka hadda taagan qayb ka mid ah annaga noo soo hormartay oo nagu dhacday kala burburkii iyo kala yaaci waxa aakhirkii dambe aan imi magaalada maaragtay Garowe oo aan maaragtay baawur ku soo galay dadku diyaaradaha ku yimaadaan war xilliga baawur baa lagu soo galay Nairobi baan baawur kaga imi dad badan baa isweydiinay Nairobi see baawur looga yimaaday wax kale oo soconaya ma jiraan oo imaan jiray halkaan ama badda ama dhulka 92gii baan halka imi kadibna magaalada Garowe in muddo baan joogay ilaa 1995kii waxaan aaday dalka Australia aan muddo ku maqnaa waxbarashadeeda wixii ka dhinaa halka aan ku soo dhameystay kadibna waan soo noqday oo Puntland baan ku soo noqday 2008kii baan dib ugu soo noqday wixii ka dambeeyay 2008kiina Puntland baan joogay anigu waxaan ka mid ahay dadka u badan oo siyaasiyiinta oo Puntland jooga baan isku tiriyaa inaan ugu badnahay inta muddadaas waxa Ilaahay mahadiis ii suurta gashay in 3 dawladood aan joogay mid markaas uu aabay uu ka ahaa madaxweyne mid uu maaragtay Cabdiwali madaxweyne ka ahaa termka hore Deni Sayid Cabdullaahi Deni madaxweynaha hadda jooga iyo termkiisa dambe tii afraad oo ii socota marka 4 dawladood nin Puntland jooga hadda waxaan mulanayaa rekoorku waa jabiyay hadda waxa la filayaa isagu inuu toddoba madaxweyne u noqdo marka kulley Maxamed Cabdiraxmaan waa ninkaas hadda kula hadlaya hadda waxaan ahay wasiirka deegaanka isla markaana waxaan madax u ahay
xisbiga horseed ood ka war haysaan in doorashooyinkii ka dhacay Puntland saddexda degmo ugu dambeysay aan ka qayb galnay waxaan noqonnay xisbiga labaad oo markaas ku xiga xisbiga dawladda waan ka noqonnay waxaan noo suurtowday in xisbigaas uusan qaybna ka noqon dhismihii golayaasha deegaanka hadda jira laakiin xubnihii ay jiraan sababa dhinaca siyaasadda xisbiga ah maanu samayn annagu sida xisbiyada qaarkood mabaadi'da xisbigan adkaynay iyo dadka xisbiga taageerayay oo iyagu markaas haddaysan markaa is helayn xubinta councilka go'aansaday in xisbigu uu bannaan ka joogo golaha muxuu ahaa councilka uusan madax ka noqon muxuu ahaa xubnaha la qaybsado haddana waxaan ku shaqaynaa qayb ka yahay xisbigu dowladda hadda jirta sida Cabdullaahi Dani madaxweynaha uu yahay ka xukuumad ahaan oo anigu aan markaas xisbiga horseed anigu ku jira aan qayb ka ahay marka halkaas waxaa ka baxaysa principalka ah in xisbiyadu aysan shaqaynayn xisbiyadu waa shaqaynayaan xukuumadda gudaheedana way ka shaqaynayaan bannaankana waa joognaa kansuladii baan ku jirnaa marka nidaamka dimuqraadiyadda waxa weeye mid fully functional ah Puntland aad buu u shaqaynaya waa mahadsan tahay wasiir waxaan rabaa inaan galno su-aalo guud oo ku saabsan deegaanka Puntland si guud wasaaradda deegaanka waxyaabo badan baa dabcan u qorshaysnaa sidoo kale waxyaabo badan baa u qabsoomay marka wasaarad ahaan maxay yihiin waxyaabaha waaweyn oo idin qabsoomay oo ilaa hadda dhaqaaqay waxa ugu weyn oo qabsoomay waxa weeye dhinaca wacyiga oo wasaaradda intaan joogay dareenka dadka iyo shacabka reer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya inay gashay wax la yiraahdo deegaan oo macno leh maalintii la magacaabay commentiyada dhalinyaradu soo qorayeen deegaanka waxay ka dhigayaan wax ciyaar ah oo lagu ciyaaro qoraxda sagaarada bahalaha meelaha maraya bay u ahayd deegaan laakiin waxa nasiib wanaaga in deegaanka maanta la fahmay oo macno badan uu leeyahay ilaalintiisana ay tahay midda kaliya oo aan maaragtay jiritaankeena ilaahay ka sokow ee muhiim u tahay adduunkan korkiisa in la ilaaliyo marka wasaaradda waxa ugu badan oo samaysay aan ku faani karno maanta waxa weeye in fahanka deegaanka dadweynuhu ka haystaan gaar ahaan dhalinyaradu uu kor u kacay marka waa wax aad u wanaagsan yahay marka inta laga yimaado waxa warbixin kooban naga siisaa si guud xaaladda deegaanka ee Puntland hadda wallahi Puntland waa deegaan ballaaran oo dhul ballaaran weeye sida ka warqabtaan waa 1/3 of Soomaaliya noocyo badan buu isugu jiraa oo ah dhul bannaan oo dhul daaqsimeed ah dhul xeebeed iyo deegaano kale oo iyaguna buuraley ah oo hadda aad ka war haysaan meelaha dagaaladu ka socdaan ah marka waa dhul bee'adda ay kala duwan tahay xaaladiisu way kala duwan tahay deegaano waxaa jira dadkooda wacyigooda kor u sarreeyo oo aad loo ilaaliyo deegaano wacyigu aad u hooseeyo deegaano waxqabadku ay uusan gaarin maadaama maalgelinta deegaanka oo guud ahaan Soomaaliya aad u hooseyso iyadana ay sababtay in maaragtay isbeddelka cimilada uu saameyn weyn ku yeesho burbur badan uu soo gaaray marka xaalad deegaanku waa mixed waa isku dhex jir laakiin anu waxaan oran karaa ma fiicna meesha ay marayso haddayna si degdeg wax uga qaban marka waxay u baahan tahay faragelin badan oo dhinaceena ah oo dhinaca maaragtay shacabka ah inay qayb ka qaataan ka shaqayntiisa iyo ka warqabkiisa meel walba ay joogaan isla markaana siyaasado badan oo lagu dhaqi karana ay ku caawinaan dawladda oo lagala shaqeeyo sida hirgelinta shuruucda kale marka haddii intaa la isku helo waxaan u malaynayaa in aan ku guuleysan karno in jiilka soo socda aan uga tagno dhul bad qaba hadduu ilaahay idmo bacad guurku waa khatar ka mid ah khataraha waaweyn waxyeelada u geysta deegaanada sidoo kale Puntland waxay ka mid tahay meelaha ugu badan oo hadda bacad guurku oo dhibaatooyin badan u geystay magaalooyin qadiimiya kulubiya ay ka mid tahay dhaqaaqyada wasaaradda deegaanka ay ugu talagashay iyo maxay ka qorshaysan si guud khatarahaas bacad guurka wallahi waxa base u ah wax walba oo la qabanayo waa finance iyo maaliyad maaliyad haddaan lahayn waa adag tahay in maaragtay shaqada loo baahan yahay looga qabto waa ka war haysaa Soomaaliya burbur baa ku dhacay dawladda hadda dhexe Soomaaliya ka jirta capacity weyn oo ay ku gasho hawlahaas wax looga qabto ama dhinaca qaybsiga deeqaha ama dawlad dhexe oo ku maqan
oo Puntland kala shaqeysa in meelaha dhibaatooyinka ka jiro sida arrimaha bacaad guurka oo nagala shaqeysa way adag tahay in la helo laakiin inta aanu joognay study badan baa la sameeyay oo wasaaraddu ka warhaysaano wasaaradda 2009 baa la sameeyay ka warqab badan oo deegaanka Puntland inta uu yahay xaaladdu ku sugan yahay baa yaala iyo maaragtay baaritaano badan lagu sameeyay waxay u baahan tahay in finance loo helo xilliyadii hore oo dawladda Soomaaliya ay jirtay xilligii dawladda Maxamed Siyaad Barre muxuu ahaa 20 sano dalka jirtay bacaadkaas dhibaato badan buu ku hayay qaybo ka mid ah Soomaaliya hasii kala daraadee marka xilligaas waxaa jirtay xilli dawladda marka ay u quntay in si iska wax u qabsaa loola dagaalamo waa maqasheen baad celinta Shanaanbood oo dhibaato ahayd marka dad baa wax ku beeray oo gacantooda ku beeray iyagoo aan taageero banaanka ka helin Puntland situationkii oo kale baa hadda deegaanada qaarkood ay ku sugan yihiin marka waxaan filaynaa in wasaaraduna ay u qareento oo baadi goob loogu galo sidii wax loogu qaban lahaa wixii anagu karaankeena ahna aan gaarsiino dadka deegaanka ah hadda wasaaraddu dhawaan waxay u dirtay team marka deegaanka Garacad iyo ku dhow si xog looga soo helo iyadana hadda xogtaas waxaan rabnaa inaan bal qayladnaan badan aan u sameeyno hadduu Ilaahay idmo aan mashaariic loo xereeyo ama ha ahaadin deeqo Soomaaliya la siiyo ama mid deyna ha ahaato marka hawshaas way jirtaa waana khatar oo dhulka deegaanada ku hayso waliba soo gaadhay dhulka daaqsinta ahaa ee xooluhu daaqi jireen marka waa arrin anagoo dhan noo wada taala iyo guud ahaan dadka reer Puntland wasaaradda deegaanka Puntland waxaa miisaaniyadda ugu jirta 2024 $36,000 oo dabcan kharash bileed ah mis leedahay hawlaha u idman tahay wasaaraddu miisaaniyadaas oo ku filan tahay kuma filla waa ka waray $36,000 xama qaban karto kharashka running cost-iga xataa wasaaradda ma gaarsiisna laakiin jiritaanka wasaaradda iyo shaqadeeda muhiim ah oo kullayba waxay yihiin waa ka warhaysana wadan taajir maaha Puntland wadan maaha iyo state laakiin state ahaanna Soomaaliya burburka qaybihiisa badan ka jira qayb kala tahay miisaaniyaddan inta badan waxay aadaa dakhliga ilaalinta maaragtay amniga oo maaragtay looma qoondayn dhinacyada kale inay aado laakiin waxaan badanaa wasaaraddu ku tirsan tahay deeqaha la bixiyo ama World Bank ha bixiyo ama hay'adaha kale ha bixiyeen bay ku tirsan tahay mashaariic badan bayna fulisay ilaa sanadkii 2009kii wixii intii ka dambeysay sidoo Soomaaliya inta burburku gaaray mar walba taageeradu wax dawlad finance garayso ama lacag ku bixiso kama aysan dhicin laakiin waxa la filayaa in maaragtay Ilaahay idinkiis mar un ay gaadho kulaba jiilkiinaan warka idinku ma soo gaarin waxaan wax la maal gelin karaa marka wadanka uu natural resources uu hirgeliyo hadii shidaal la helo hadii macdan la helo iyo hadii badda wax laga soo saaro oo dakhligaas loo jiheeyo in wax laga qabto dhulka burburku gaaray ama maaragtay sektorada kala duwan oo markaas u baahan in wax laga qabto laakiin waxa hadda annagu aan sameynaa waxa weeye dawladda Puntland ay sameysaa in hay'aduhu jiraan kuna jiraan existing cost-iga ama kharashka loogu talagalay inay ku rangareeyaan ama korontada iyo biyaha isaga bixiyaan ama ay maaragtay shaqaaluhu sahanada ku sameeyaan taas ma hadda sameynaa laakiin wixii kale oo dhaafsiisan wasaaraddu waxay ku tiirsantahay taageerada caalamiga ah ku tiirsantahay arrinka la dagaalanka xaabada iyo dhuxusha hawlo badan baa ka qabateen dabcan arrinkaas xaabada iyo dhuxusha waxa moodaa inuu deegaanka si adag ula dagaalamayo doodo waxaa jira dadku ay qabaan oo dhanka la xiriira xaabada waxay yiraahdaan wasaaraddu 2 geed oo qalalay intay qorshe ka dhiganayso 100 geed oo qoyan oo dhuxul laga sameeyay waa la gubaa marka si guud wasiir maxay tahay boolasiga hadda si guud ay wasaaraddu arrinkaas u diyaarisay qorshayaashiina hadda ku aadan labadaas dhinacna maxay tahay sidoo kale waxaan ku sii raacinayaa arrinka caagadaha oo dabcan shirkii hadda ugu dambeeyay maalinka xusitaanka deegaanka isaguna qayb weyn ka ahaa qorshihiina fulineed muxuu yahay horta hawlaha hadda aan hayno waxa sal u ah waxa weeye waa wacyigelin iyo awareness wax qabadka dhabta ah wuxuu imaanayaa markii xalka loo gudbo haddii shay leeyahay shay ha lagu bedelo ama ha la joojiyo waa in solutionkiisa uu yimaado haddii for example
xaabada iyo dhuxusha la leeyahay completely hala joojiyo waa in boqolkiiba boqol la helaa in gaaska uu bedelo dadku isticmaalaan sababtoo ah waa in alternative energy la helaa haddaan la helin wixii u bedeli lahaa gaasku waa qaali waxyaabo badan baana qaali ka dhigay weliba deegaanadeena oo burburkii dowladda hore Soomaaliya intay jirtay aan infrastructure badan laga dhisin ama aan la dhisin maaragtay meelihii kaydka ahaa oo gaaska lagu kaydin lahaa taas waxay sababtay in kaydku yar yahay oo gaasku noqdo mid doon la soo saaro oo ka bacdina aan maaragtay price-kiisu uusan ahayn wax maaragtay fixed ah oo aad qaali u ah midda kale waxa weeye wacyiga dadka oo aad u hooseeya maadaama burburka dhacay dowladdii wacyigelinta sameyn lahaydna meesha ka baxday shuruucdii dawladii ku sheegay marka hore bilowgii wasaaraddu focuska waxay saartay muddadan joogay bal dadka in la fahansiiyo deegaan inuu jiro shuruuc baa jirta baarlamaanka Puntland ansixiyay oo ah shuruucda deegaanka oo kulay waxaan u maleynayaa jaamacadahan ka mid tahay jaamacadu ma dhigaan baa umaleynaya shuruucda la bartay kuma jirto shuruucda deegaanka jirta oo iyada laftigeeda ka mid ah sida deegaanka loo ilaalin lahaa ama loo xakameyn lahaa taas baa ka hor imaanaysa qofkii geed gooy iyo dhuxusha sida loo sameynayo marka arrimaha dhuxushu waa run waa problem laakiin annagu waxaan sameynaa wax la yiraahdo hadda wasaaraddu sameysaa waxaan ahayn joojin boqolkiiba boqol laakiin in la tuso qofka in waxa uu sameynaya ay khalad tahay aysan ahayn wax maaragtay la ogol yahay oo ah business as usual sideedaba wixii consumption ah oo for example qofka uu u isticmaalayo energy intuu tago ama xaabo yara soo qaadanaya ama dab ku shidanayo wax shuruucda diidaysa maaha waa la ogol yahay laakiin markii uu ganacsi galo baa dhibaatada ugu weyn jirtaa wasaaraddu marka alternative waa ka fakraysaa in gaaska la jabiyo in gaaska loo helo meelo lagu kaydiyo ka bacdi uu raqiis noqdo in maaragtay dadka masaakiinta oo iyagu marka awoodi karinna la gaarsiiyo siyaabo kale gaaska hadda la isticmaalay mid kale ka duwan loo helo in meelo kale oo gaaska laga dhalin karo iyadana la sameeyo sida qashinka aan tuurin laftigeeda oo farsamooyin baa jira qashinka maaragtay meelaha lagu tuumiyo haddii siyaasadda qashinka ururintiisa la saxo oo loo kala saaro qashinka midka qoyan iyo midka qalanaya loo kala saaro marka adduunka hore u maray waxay ka dhaliyaan energy baa laga sameeyaa iyadana waa optionna jira oo haddii la sii socdo dadkuna sii jiraan raggan dhalinyarada ay sii noolaadaan oo carrada wax bartaan la keeni karo oo maaragtay lagu shaqeyn karo oo bedeli kara dhuxusha marka anagu stepka koowaad baan qaadnay oo ah bal dadka inaan u sheegno waxaanu inay dunuub yihiin qofkuna uusan si macno darraa geed u goyn karin ama xaabo u shidi karin ama muxuu ahaa dadku ay markaas personal responsibility qofka uu mas-uuliyad gaara isagu iska saaro arrinta caagadaha waa run adduunka dhan bay ka jiraan ayaanta dhow shirka aan qabanay warbixino badan baa lagu soo gudbiyey lagaga hadlayo adduunka iyo caagaduhu say dhibta ugu hayaan alternative baa jira caagu isticmaalkiisu adduunka meelo badan baa laga isticmaalaa laakiin meelo aadaa jira oo waa inuu jiraa recycling systemkii waa inuu jiraayo haddii caagadaha magaalada ay isticmaasho waa in warshad la geyn karaa markaa recycling lagu samayn karaa ama warshaduhu dib u isticmaalan kana kuwa biyaha laftigooda in caagada kale u bedeli karaan waa initiative maaragtay furan ganacsatadeenna inay maaragtay warshadahaas oo kala samayso iyada laftigeeda caqabadaha ka haysta oo ku saabsan in warshada la sameeyo in la helo marka hore koronto jaban in la helo haddaan koronto jaban la heli karin warshad cidnas kama furan karto isma bixinayso marka caqabadaha jira markii mid loo qaado waa loo baahan yahay midda marka muhiimka waxa weeye yarayntooda muhiim ah iyo fahankooda iyo sida loo aan aysan u noqon wax maaragtay hadda bacaha waa mamnuuc halkan oo Puntland waa ka mamnuuc alternative waa la heli karaa qofku wax ku qaadan karo ku sii deyntooda environment iyo deegaan ku sii deyn kara waa individual responsibility in aad u bax soo qaadatid oo markaas kadibna ad sheyga marka ku qaadatid ka dhameysatay aadan deegaanka aad ku sii deyn oo si kale aad u asturtid iyadana waa muhiimad waxa weeye shakhsiga iyo qofka ku xiran marka taasuna wasaaraddu waxay saaraysaa iyaduna muhiimad baan saaraynaa si aan markaa wacyiga dadka iyo ay u kordho isaguna marka waa wax iswada suran oo aad leedahay marka baahi maaragtay in la helo midba midda kale ay ku xiran tahay oo kana bilaabato kow
dadka iyo wacyigooda bay ku xiran tahay. marka aad baan ugu faraxsanahay in mar walba deegaanku uu priority noqdo. marka aad boorka soo dhejiseen dad badan baa ka hadlay waxay dhaheen deegaankii dimuqraadiyadda maxaa iska galayo. labadu waa isku xiran yihiin. marka waxaan u malaynayaa dimuqraadiyadduna haddee waa wax dee aan ku noolahay. waa in qofku helaa xorriyad, waa inuu helaa uu maaragtay waxna ku doorto, waxna maaragtay uu ku diidi karo, kuna hadli karo, kuna express garayn karo muxuu ahaa opinionkiisa. deegaankuna waa ilaalintiisuna waa muhiim, oo iyadana dee waa meesha aan ku noolahay oo ka warqabkiisa isaguna waa muhiim. marka labaduba waa interlocked oo isku xiran yihiin. waa wax maaragtay qofkii ku xiran iyo noloshiisa ku xiran. wasiir waxaa jira shuruucyo tiro badan oo deegaanka loo dhigay, baarlamaanku ansixiyeen, kuwa idinkeedii ka yimid intaba. ilaa hadda waxaa moodaa kuwo badan oo ka mid ah inaysan dhaqan gelin. madasha may fikiraanna waa afka dadweynaha dabcan loogu gudbiyo wacyigelinta si guud. ma jiraan waxyaabo ay u dhaqan geli waayeen oo abaarteen? waa midda koobaad. midda labaadna maxay tahay fariintaada ku aadan oo dhaqangelinta shuruucahaas oo aa u gudbinaysid bulshada ku daawanaysa wasiir? sharciyada waxaa u baahan horta in la akhriyo, waa muhiim. soomaaliya burburka waxaa u keenay sharci aan lagu dhaqmin baa kow ka ah. dowladda maxamed siyaad barre iyadu sharciga kuma dhaqmin, dalka xoog bay ku haystaa, askar bay ahayd. wixii ka dambeeyey 30 sano ka dambeeyey ka badanba, wixii sharci la qoray dastuurka ugu horeeyo Soomaaliya cid ku dhaqantay ma jirto. sharciga marka caqabada ugu weyn oo haysata waxa weeye waa dadka aan rabin inay ku dhaqmaan oo fuliyaan. hogaamiyaasha ugu horeeya meesha joogaan. hogaamiyuhuna hadda waxaan mulanayaa awrba waxaa leeyahay awrka ka horeeya sanqaadkiisu leeyahay. dhalinyaraduna waxaan mulanayaa haddii hogaamiyaasha ay ku dhaqmi waayeen iyaguna waxaan mulanayaa inay iyaguna iska tashadeeno oo leeyahay iyagu hadday sameynayaan idinkan maxaa idinka galay. wada sharciga deegaanku kaasuu la mid yahay oo meel kale isagu kama imaan. shuruuc badan baa qoran adduunka. dadkuna haddaa aragtid horumarka la gaaro oo dal gaaro waxaa saldhig u ah ku dhaqanka shuruucda. maxkamaduhu ha fuliyeen oo ha ku fuliyeen cidda u gafta, ama dadku ha ka baqo hadday gafaan in sharcigu qabanayo. oo ugu hooseeyo sharciga ganaaxa baabuurta haddaadan laysanka haysan, haddaadan nal guduudan oo daarana dhaaftid, haddaadan maaragtay qof jiirtid wixii lagu samayn lahaa. marka sharciga deegaanka caqabadaha ugu weyn oo haysta waxa weeye ku dhaqan la-aanta wey. inaan lagu dhaqmin. anagu intaan wasaaradda joognay aad baan u adkaynay in lagu dhaqmo, dadkana xusuusino. weli caqabada waana haystaan. waxaan filaynaa caqabadaha inaan ka gudbi doono insha allah, oo maaragtay shuruucda ay noqoto kuwo markaas haddii ciddii ku xadgudubta lagu qabto maxkamaduhuna siday tahay ay maaragtay u fuliyaan. faafintiisa dhowr jeer baa wasaaraddu qayb ka noqotay. tv-ga qayb baan geynay. lama daneeyo, weliba dhalinta yararka ma daneeyaan. maantoo dhan haddaa ka akhriyaysa facebooka ama lasoo geliyo reactionku aad buu hooseeya. laakiin dilayada maxaa cabdiraxmaan baa jaranjarada gurigiisa kasoo dhacay ama meel dam ku yiri, waxa weye reactionku cirkaasuu maraya. laakiin sharci cid akhriyaysa ma jirto. waa fiiriya social mediada iyo mediada muddaan ka shaqaynayay, no reaction at all. haddaad liyaaba sharciga hala akhriyo cidi dhegaysan mayso, qof comment kasoo bixin mayo, talo laga bixin mayo. laakiin maantoo dhan xasaradaha xalay waxaa la yidhi muxuu ahaa waxaan ujeeday wasiirkii muxuu ahaa wasiir doolihii oo tuuladiisi tegey, deegaankiisa degmadii shaxda tegey, xabadaha lagu furay. meesha cadow ma joogo. waxaan mulanayaa khaatumiya puntland farqi badan uma dhexeeya, waa isku dad. marka waxaasa facebooka wareegaya, laakiin sharciga wareegaya facebooka arki maysaa lagu dhaqmo. marka dhalinta waxaan aad uga codsanayaa weliba intiina halka fadhida in maaragtay arrimahaas aada loo buunbuuniyo. wixii ku saabsan wixii danteenna ah aan ka shaqayno oo muhiim ah. marka taasaa keenaysa adi laftigaagu inaadan arkin. oo waxaan mulanayaa dhowr jeer baan ku arkay adoo hadlaya sharciyada badanaa sharciga kuma dirta waxaa ka hadlaysid. wasiir, habka habgudbinta loo gudbinaya sharciyadaas iyada ruuxeeda in wax laga bedelo in loo baahan yahay dad badan soo gudbiyaan, oo waxay moodaa hab traditional weli in loo gudbinayo fariimihii. marka iyada ruuxeeda in qorshaha miidiyaha lagu daro gudbinta ku muuqataa. tv-ga waa geynay. tv-ga dowladda way fadhiyaan saraakiil wasaaradda ka mid a halka fadhiya.
marba waxaan ku bixinay maaqaan bil baan ku bixinay xataa tviyada iyo social media iyo laga baahiyo waxaan u malaynayaa de waxaan la arkin wax haddaan la share garayn oo likes badan la siin dadku waxaan u malaynayaa hadda dhan intaa fahmaysa circulationka muxuu ahaa itemkaas waa yaraanaya facebooka ku yaraanaya laakiin haddaad fiiriso tiraahdo sharciga waa inaga kaxay laakiin haddaad like tiraahdo waxaa dhici karta kale inuu arko marka waxaan ku oran lahaa like ha loo badiyo si loo arko marka anagu soo gelino meelahaas waa mahadsan tahay wasiir 2023 ilaa 2025 waxaa aad u batay kiisaska dhoofinta geed quwaaxa midkood horta maxaa keenay sidoo kalena maxay tahay waxyaabaha idinka yaala dhoofinta geed quwaaxa si guud booliis ahaan geed quwaaxu kulley anu halkan waxaan u imid geed quwaax laga hadlayo wasaaradana markaas wasiir laga dhigay ilaa hadda waxaan ogaaday intaan meesha joogay waxa qaata waa Chinese maalin dhaweyd baa nin Chinese ii yimiyo niman dhalinyaro baa waday marka waxaan malaynayaa inuu ahaaba kii xadi jiray ama loo xadi jiray marka su'aalan ka weydiiyay waxaan ku yiri maxaa geedkan ku falaysaano wuxuu yiri China waxaan sameynaa buu yiri meelaha muhiimka baa la dhigaa lagu qurxiyaa waa dhowr geed oo nooc weeye waliba deegaamadan nugaal u badan baa laga helaa waxa weeye dambi baa ka yaala sharciga hadda ay weydiinaysid baa dambi ka qoraya wasaaraddu dhowr jeer bay qabatay cases baa jiray muxuu ahaa famous ahaayo maxkamadeey dad lagu maxkamadeeyay halkan waa contraband wax hadda official ah oo dawladdu ogoshahay maaha dalkaana xuduudyadiisu waa furan yihiin baabuurta iska soconaysa la gelinayaa lagu xadayaa dad maaragtay qeyr mas'uula qaata qaarna naf baa u geysay waxaan maleynayaa kulleyba un dakhli bay ka raadiyaan wasaaradda aad bay ugu dadaashay inay xakamayso runtiina hadda meel fiican buu marayaa xakamaynta booliisku aad bay uga shaqeeyaan oo dhowr jeer baa lagu qabtay wadadan dheer oo maaragtay Garowe iyo u dhaxaysa Gaalkacyo marka shaqooyin badan baa ka socda geedkaas laakiin hadda baaris baan wadnaayo horta faa'iidadiisa waxay tahay maaragtay inay cidi suuq geyso oo meesha loo suuq geeyo laftigeeda inaan communication la sameeyno xiriir la sameeyno ogaano sababtoo waxaan ogaano laftigiisa waxa dhici karta inuu faa'iido badan u leeyahay haddii uu yahay wax maaragtay dhulkeena ka baxa macnana leh bal in dawladdu ay markaas fiiriso in alternative income uu noqon karo la dhigi karo system dawli ah mar hadda waxa waa la dhoofiya marka in maaragtay si sharciyan marka loo dhoofiyo oo laga shaqeeyo hadduusan geed dhabar go'ayo uusan ahayn oo markii inta laga qaado uusan dib dambe ama u soo baxayn ama la beeranayo meel kale laga beeranayo khatarta waxa ah geedka in la beerto sababtoo waxyaabaha dalka ka baxa in la ilaaliyo idinka dhan mas'uuliyad baa idinka saaran hadda meel kale loo xado la geeyo hadda muhiimaddu uu kula halkii inuu ka baxo oo macna beelaysa marka taas marka wasaaraddu optionadaas oo dhan bay fiirinaysaa anagoo marka waxaan ka taxadaraynaa inuu geedku noqon wax la iska dhoofiyo oo dad kale ay ka baac mushtaraan oo marka hadhow aan lagaaga baahan ban laga soo doonto marka warkiisu isagu waa ma badna laakiin dawladdu waa aad bay uga shaqeysaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo jiray arrinka boholaha dooxooyin badan baa waxa looga guurayaa oo hadda waxay u waxyeeloobeen arrinka boholaha kiisaska ka diiwaan geliseen boholaha iyo sidoo kale waxyaabaha idinka qorshaysan ama idinka qabsoomay dhanka boholaha maxay bohosha sideedaba waxa keena geed la jaray baa bohosha keena dhirtu waa harka dhulka haddii geedka la jaro qoraxda iyo dhulka wax u dhexeeya ma jiraan waana ogtihiin oo seasonka roobka waa taqaanin soo maaha imise xilli baa roob ka da'a Puntland ama qaybahan aan ka degannahay Soomaaliya yaa sheegi kara waa laba Soomaa labada xilli ma labada kale waa qorax iyo dabayl way hadda geedkii dhulku harsanaya aad goysid marka dambe uu roobku yimaado daadadka dhaca dhulka burburinayaan sababtoo dhulkii oo jilicsan oo burburay oo qorax baabiisay baa daadadka ku dhacayaan bohol baana ka soo baxaysa horta sideedaba bohol hadda aragti samaysantay waa geed la jaray marka horta samayskooda qayb
libaax waxaa ka qaata bini aadanka ka qaato waxaan hadda xaabada intaas sii dareeraysa soconaysa waa wixii dhulku harsanayay oo loogu talagalay dhulku inuu cover u noqdo marka haddii dhulka aad qaawisido dhar kala baxdo qof dharka lagala baxayo qoraxda lagu xiray hadda ka waran maxaa ka filaysaa korkiis waa dildilaacaya sooma marka taas problemka dhulkeena haysta horta taasaa base u ah dadku marka adduunka waxaa la yidhaahdaa maaqaanaa barateen causon effect baa jira marka badanaa soomaalidu waxay ka hadashaa effectiga causationka kama hadasho causationka waxa weeye dhibka aad geysatay baa causationka ah laakiin waa kuu imaanaya waxay kule dhulkii boqolaa qaatay waxaan dhici karta odayga maaragtay kuu imaanaya bohosha kuu sheegaya wiilkiisuun geedka jaray marka muhiimadda inaan deegaanka aan ilaalino oo aan dhirta dhaqaaleyno weeye haddaan dhir jarayn inaan geed kala beero sababtoo ah 90% anu iskuulla badan baan tegay intaan meesha joogay carruurteena dhir ma beerto hadda intiina weydiy imsaa geed beerta hadda intay noolayd qof hadda geed ku taxalluqa ma jira ama geed beeray yaa ka mid a hal qof miya ya ma hadda qof geed beeray aduu dowladda hoose la beertaa malaynay dadka beeray noosha ya dad yar weeye soo ma for example hadda Kenya oo kale qofka school dhigta qofka ugu yar intuusan high school gaarin 50 geed buu beeray oo dhalinyarada ah intuusan 20 sano gaarin imagine hadda qof hadduu hal qof 50 geed beero oo ka shaqeeyo macnaha waxa weeye deegaanka ilaalintiisu waxa qayb ka ah dadweynaha ama shacabka ama bini aadanka ku nool boholuna waa imaanayaan waxa ugu badan oo wasaaraddu hadda la tacaasho way waa boholaha waxa kaliya aan sameynaa annagu waxa weeye bohosha baan joojinaa bohol garowa oo kala la eg cidna ma aawdi karta sideedana kuma soo celin karta ilaahay waa ku soo celin kara laakiin waxa kaliya la sameeyaa waxa weeye socodkeeda la joojiyaa meel baa lagu joojiyaa saas ma faro socodkeeda la joojiyaa waxa weeye dhagax baa la dhisaa engineer loo diraa waa la joojiyaa meesha inay ku joogsato marka Puntland oo dhan imisa bohol oo la joojiya noqon karta wax badan way marka muhiimadda ugu weyn waxa weeye dadka ay saaranta dhalinyarada saaranta dadka soo koraya jiilka soo koraya saaranta in marka laga shaqeeyo deegaanka in la ilaaliyo ugaartiisa loo daayo ugaartuna aad waa laga dhameeyay bahal kuma noola bahaladii waxna waa la cunay waxna waa carareen waxna waa dhintay waana systemka adduunku koonku ku nool yahay way meelaha hadda baadiyaha markaan tago reer baadiyaha aan u sheegaan waraado dhurwaaga yaan la dilin waxay yiraahdeen farwal wuxuu noo keenay hadda dhurwaaga yaan la dilin dhurwaagu hadda idinku hadda Google garaysaan adduunka hadda Google iyo waxaas hadda wararka sheega waa dawladda hoose baadiya qashinku ka cunaa baadiya reer baadiyo markay seexdaan ama neef baktiyay hadda meelaha looga tago habeenkii lafaha laga seexdayo subax looguma yimaado dhurwaaga qaata dawladda hoose la'aan may ku noolaan kartaa garow baadiyuna waa lamid dhurwaaga lamid for example bahalkan la yiraahdo jiitaha ama libaax waa laga dhameeyay dhulkan maxay keentay side effectigiis in daanyeerkii bato daanyeerkii yaa cuni jiray libaaxa cuni jiray waxa cuni jiray shabeellada cuni jiray haramcadka cuni jiray dhirta ugu fuuli jiray markii isaga meesha ka baxay populationka daanyeerka batay marka wax walba oo adduunka jira waxa weeye balance bay ku jiraan hadda rag badan oo geela dhaqdana ma nala fadhiyaan wixii bahalaha intii la dhameeyo geela kaliya la reebo iyo intii dhirta cunaysay marka dhirtuna marka waa dhamaanaysaa ilaa geela hadduu tirada ka bato dhir miyaa haraysa dhirtu waa dhamaanaysa balance ma jiro adiguna beeri maysid reer baadiya geed ma beero waa jaraa isma weydiiya xataa inuu soo baxayo waxaa dhici karta inuu 3 xero ama 4 xero ka guuro 4 xeraba uu ku ooto muxuu ahaa dhir u jaray numberka marka hadda calculate garaysa percentage-ka dhirta la jaraya ka badan waxa badan iyo geela tarmaya iyo waxa beeraysid waxay soo baxayaan in dhulkaas nabaad guurayo 20 sano ama 30 sano soo socota soo geed ku haray marka waxaas oo dhan marka waxa way waxay gelin baa base u ah iyo in aan anagoo dhan maaragtay ku feejignaano san deegaanka u ilaalino wasiir xirmaysiga sharci darrada ah ee dhul daaqsimeedka iyo sidoo kale deegaamaynta cusub way soo badatay khilaafkeeda arrimaha bulshadana wuu batay
sidoo kalena maxaad is leedahay dhibaatooyin way u geysteen dadkii xoolo dhaqatada ahaa halkan adigu muxuu kula muuqdaa dhulkan la iska odanayo la iska xiranayo iyo sidoo kale deegaameyntan cusub iyo si guud wallahi dhibaato weyn oo jirta weeye oo marka qaarkood waxa weeye laba waxyaalood baa isi saaran oo waxa weeye horumarkii in horumar la helo iyo in la helo dhulkii la ilaaliyo daaqsinka ahaa laftigooda waxay isku noqdeen cillad jirtay isku noqotay sidii loo kala saari lahaa qofka dhulka qaadanaya oo dhulkaas oo laakiin la xadiday oo aan dooxa ama dhul la daaqsimeed aan ahayn marka nidaamka dawliga ayuu jira ama dowlad hoose ha ka soo bilowdo ama heer wasaaradeed ha gaarsiisna marka uu xadidayo kadibna la xaqiijiyo qofkaasuna dhulkaasu uu intentionkiisu yahay inuu shaqo ka qabto inuu nooleeyo oo kolleyba diiniyan xataa laftigeeda dhulka cidda nooleynaysa waa loo ogolya laakiin inaad weegaaratid oo iska haysatid oo dadkiina ka xanibtid laftigeeda dembi weeye iyadan waxyaabaha ugu badan weeye adduunka hadda waxaa la yidhahdaa climate security-ga laftigiisa bay hoos timaadaayo conflictyada ugu badan wuxuu ka dhaca daaqsin iyo dadkeena maaragtay soomaalida ah dhul daaqsimeed laisku laayay iyo biyo laisku laayay baa ugu badan waxaa ugu badan oo dhaca mentalityga laftigooda reer baadiyaha mararka qaarkood inay extreme ka tagaan meel walba oo jirta inay daaqsin ka dhigaan marka dowladdu waa arrin aada hadda ugub ah laakiin soo badanaysa oo jirta oo wasaaraddu ma ankirayso inay jirto dhibaato badan baa naga haysataa nasiib darro mararka qaarkood dad baa ku dhinta oo isku laaya mararka qaarkoodna cabashooyinku waa badan yihiin laakiin waxaan rajaynaynaa in system loo helo arrintaas lagu miisaamo oo lagu balance gareeyo iyadoo markaa wasaarado badan bay hoos timaadaa oo waxaa ka mid a wasaaradda arrimaha gudaha ka mid a waxaa ka mid a wasaaradda deegaanka ka mid a waxaa ka mid a wasaaradda muxuu ahaa amniga ka mid a waxaa ka mid a local councilska ka mid a oo iyada laftooda dowladaha hoose u akhusaysaa marka waxa weeye waa cross cutting issue marka arrintaas marka waxay u baahan tahay in shirweyne ballaaran laga yeesho oo dowladdu ay hogaaminayso kabacdina go-aamo laga soo saaro oo go-aan laga gaaro wasiir waa mahadsan tahay waxaan rabnaa su-aashii ugu dambeysay oo qeybta si guud deegaanka puntland inaan galno nidaamka dhirbeerista dadkeenu saa haddaba hore u xustay aada buu u yaryahay ma heli karnaa ama wasaaraddu ma samayn kartaa qorshayaal khasbaya muwaadinku inuu geed beero hadday noqoto nidaamka waxbarashada kuwa ku jira hadday noqoto nidaamka shaqada hadday noqoto dadka isguursanaya oo kale inay deegaanka wax ku beeraan khasba looga dhigayo si guud nidaam khasbaya in muwaadinku uu dhir beero qorshahaas ma idin qorshaysan tahay maxaana idii aan qorshaha soo socda hadduusan jirin waa muhiim arrintaasu in si uun lasu waafajiyo waxa soomaalidu jeceshahay ma aqaan kolley waxaan isleeyahay in ma maamulaan u malaynaya haddaan facebook waa xiraynaa kabacdina qof geed beeran oo loo furaya daqiiqad kolleyba ama dadku dhir badan bay beeri lahayn dadku facebook jecel yihiin kolley waxay soomaalidu jeceshahay inaan u marro way waxay aada u jecel yihiin waan inaan helnaa motivation waan helnaa waan waxa ku motivate garan dadka helnaa oo ah hadda uma arkaan inuu case yahay maaragtay priority ah oo aad aan ugu baahannahay laakiin wax aada maaragtay adduunka tixgelin weyn loo siiyo beerista dhirtu inta kaa go-aysa inay soo baxdo waa muhiim oo maaragtay laga shaqeeyo marka kolleyba un system baan heli doonaa hadduu ilahay idmo aan ku encourage garayna ama dowladaha hoose ha kasoo bilowdeen oo maaragtay awal mar baa dowladda hoose ballan qaaday inay tiri permissionka guryaha in guri la dhisto waxaan ku xiraynaa in dadku gurya geed la beero guri aan geed lahayn marka kolleyba hadda runtii aada bay aniga kolleyba shaksiyan ii farxad gelisay muddada aan joogay waa lagu tartamaya hadda wasaaradda dowladda hoose aada bay dhir badan u beertaa sooma beeristaas kolleyba mararka qaarkood keliya markaan waxaan dhahaa waa shaqadaadi weeye inkastoo aniga layma dhaho maaragtay maxamed baa sabab u ahaa iyo wasaaradda markuu yimi laakiin waa hawl anugu aan qabtay in maaragtay maayaradu ku faanaayeen dhir beeraan sababtoo ah de kolleyba
taas motivationka way waa in maaragtay magaalooyin ku tartamaan magaalada ka qurux badan tahay ka dhir badan tahay ka qurux badan marka in lagu tartamo maayirada lagu tartansiiya way ku fiican tahay maayiradu badanooda waa lasoo doortay in maaragtay aan memberska councilska aan wasaaraddu tababaro u fidiso kadibna tababaradaas maaragtay ajendayaashooda ku darsadaan shirweynayaasha ay kaga hadlaan oo maaragtay lagu xisaabtamo in beerista dhirtu ay tahay qayb ka mid ah barnaamijyada maaragtay dowladaha hoose fuliyaan halkaa laga soo bilaabo aad buu fiican tahay waa fikir fiican marka fikradaas oo kale waa kule waxaan xoojin doonaa duulahaydna wasiir markaa kasoo degaysid airboortka Garowe iyo sidoo kale airboorada lamid ee Puntland ku yaala runtii aad baa uga naxaysaa dhul abaar ah oo waxa weeyaan geed ku beernayd si guud wasaaradda maxaa uga qorshaysan dhiraynta iyo cagaarinta airboorada oo ah ilaha waddankan qofka soo galo laga qiimeeyo si guud dhulku waa kala duwan yahay oo landscape-ka dhulkeeda aqoono nugaal badankeeda intada badan waa deeranta saas sagaagta oo wax ilaahay u sameeyay way ma hadda wax dadku ka jaray dhir intii la xaalufiyay inteeda badan uma badna nugaasha sida way hadii airport ku online lahaa for example soona kala bayr iyo muxuu ahaa dhulka hadeer xoogaa marka kor loo baxo hawdka dhirta waa la arki lahaa laakiin nugaashu badanaa waa savana waxay u badan tahay dhul daaqsimeed bay u badan tahay haddii roob fiican hesho waa aragteen bixin iyo dhulka kale iyo say u ekaadaan marka roobku ka maqan yahay haddaad eegtid waa qalalan tahay laakiin way u baahan tahay balaan waxay u baahan tahay dhirayn ah oo maaragtay mashaariic baa soo socota loogu talagalay cagaarinta magaalooyinka oo ay soo wadaan hay-adaha caalamiga ah oo macaawanooyinka muxuu deeqaha ku bixiya funding ku bixiya arrimaha climate-ka Garowe inay ku jirtaan hadda u malaynayaa marka in laga shaqeeyo hadda kuwii magaaladan ka sameyn weynay airportka hadda dhir ka beeri karnaa hadda dhibaatadan hayso waxa weeye horta kuwa magaalada dhirayn oo iyada laftigeeda aan shaqo badan ka qabanno kadibna de kulleyba un wasaaraddu qorshaheeda in deegaano badan dhirta lagu beero weliba deegaanka ku xeeran magaalooyinka waa muhiim in loo helo maaragtay dhir ku filan marka insha Allah kulley waa imaanaysaa jiilkiina fulin doona hadduu ilaahay asan tahay inta aanan u gudbin mawduuca dimuqraadiyadda iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda aanan u gudbin waxaan rabaa su'aashii ugu dambeysay wasiirka yeelo waxaan u malaysaa biidhaca jawaabaha ugu badan oo wasiir caawa bixinaysa in ahaayeen wacyiga bulshada iyo arrinka deegaanka marka sidee loo kobcin karaa wacyiga bulshada ee ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo sidoo kale in la kobciyo lana noolaado deegaan caafimaad qabo wacyiga waxaa number 1 u ah aqoon dadka la kordhiyo hadii aqoon dadka la kordhiyo wacyigu waa kordhaya oo numberka wax yaqaana dadka ay kordhaan taas waa number 1 qodob ah midda kale waxa weeye in arrintu ay noqoto wax maaragtay priority number 1 u ah qaybaha kala duwan oo dawladda iyada laftigeeda qayb ay ka qaadato oo annagu hadda ka wasaarad ahaan inaan kor u qaadno xilliga aan joogno inaan dadku ay ogaadaan muhiimadda deegaanka uu leeyahay taasuna waa muhiim barnaamijyo lagu wacyigelinayo dadka baadiyaha joogana in aan helo iyaduna waa muhiim hadda qorsheedan ku jirnaa in maaragtay community-yada reer baadiyaha loo tago gaar ahaan dadka geeleyda ah iyo dadka kale looga baahan yahay deegaanka inay ilaaliyaan iyaga laftigooda wasaaraddu hadda waxaan anagu sameynaa guddiyaan ka dhex sameynaa deegaamada fogfog in la helo guddiyo ilaalinta deegaanka in la helo oo ay qayb ka noqdaan kadibna dadka loo sheego arrinta ay iyagu u sheegaan guddiyadaas tababara la siiyo kadibna loo diro deegaanada midda kale dawladdu hadda waxaa u kambeyn gareynay inaan helno ciidamadii ilaalinta deegaanka laftigoodu waa muhiim oo muxuu ahaa ciidanka forestryga la yiraahdo in la helo iyagana waa muhiim oo la socda ciidanka booliiska iyaguna waa muhiim oo si shuruucdii iyo marka la isu waafajiyo ilaalintii policingkii ay iyaguna isu waafaqaan sababtoo ah wacyiga iyo ku dhaqanka sharciga waa wax inta isku xiran haddii qof sharciga isagoo ku xadgudbaya deegaanka lasoo qabto oo la xiro kabacdina la yiraahdo maxaa lagu xiray geed baa jirtay maxaa lagu xiray adoo maaragtay ugaar dilaya maxaa lagu xiray adoo wax gubaya lagu waxay kor u qaadaysaa wacyiga qofka markaa anoo hadda waxyaabaha ugu badan aan sameyno waxa weeye inaan bal dadka tusno
in la joojiyo qof maaragtay dambi ku jira waan ognahay meel geyn mayna dadkeenaan hadeer in la isxiro ma ogola reer Puntland haddii qofka station la geeyo 10 qof 20 qof baa ku imaanaysa xarigaba ma jeclaba in hebel baa iga xiranay reer hebel weeyay adeer baan u ahay wiilkayga baa xiranay mar dambe u noqon mayo ku imaanayso tiro badan marka maalmaan ugu kaadinayo waxaan leenahay bal horta qofku had dareemo bal inuu dambi galay haddii markiiba la iska sii daayo wuxuu isleeyahay wuxuu macno ma lahayn marka wax walba oo la fuliyo oo shuruucda lagu dhaqmo laftigeeda wacyi ah marka adu wacyiga saasaan rabnaa inaan ku kordhino hadduu ilaahay